السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخياري وإن سلام دمانتين ميل كسو أدون كدا في ساكا جوكتان ومركل يكونوا channel هالكان نقدقي سنة وكونوا channel مركل ما أنت وحرمنا إنا إن لو داقنو سيدي ما أركت واتساب كا وقدر كراء قف ما أركت مسج وقدر كراء أضو كمغن sidoo kale waxaan rabnaa maanta inaan la wadaagno video ku horeeyay su'aalo badan aan laga soo weydiiyay oo ku saabsanaa su'aalo badan oo ku saabsan profile logga aan ma aragtay faahfaahin badan aan ka bixinay maantana waa ku celinaynaa oo ah profile-kaaga sidee log ugu xiranaysa dad badan baa su'aalana soo weydiiyay su'aalahaas oo ah profile-ka profile-ka log aan ku xiranno ma xuma laakiinse maba aragnaba khaasatan dadka Soomaaliya jooga waxay leeyihiin profile-ka log si loogu xirto waan baranay oo waa fahanay laakiinse profile log Facebook-gayga maba noolahanba bay taagan yihiin laakiinse maanta waxaan rabaa inaan la wadaago laba shay oo ah sidee WhatsApp-kaaga ugu jawaabi karaa adoo ka maqan qof ku soo wacay oo qoraal ku soo diray oo kula soo hadlay iyo sababta oo aad u weyseen profile log waa dadka Soomaaliya jooga fadlan nala soco isoo laabasho wanaagsan akhyaaray marka waxaan rabnaa hadda cashirkeeni aad sii ambaqaadno waxaan rabnaa inaan maanta aan la wadaago oo aan intuso profile-ka see log loogu xiranayaa waa un dul marayaa laakiinse cashir maanta videogeena wuxuu diiradda saarayaa oo xoogga uu saarayaa sida WhatsApp-kaaga aad ma aragtay u siinaysid instruction ah inuu u jawaabo qofka adiga qoraalka kuu soo diray ama qofka kula soo hadlay adoo ka maqan si directiya oo automatically baa waxaa ugu xiraysaa inuu qofkaas u jawaabo marka intaas waxaa kasoo hormarinaynaa marka horeeto sidee profile-kaaga log ugu xiranaysaa haddaa sii ambaqaadno sidee profile-kaaga aad log ugu xiranaysaa horta sidii hore Facebook-gu marba marka ka dambeyso waa la update garanayaa oo update baa laga dhigayaa ma ahan inuu meeshiisa taagnaanayo madba nuuc buu noqonayaa maalinkii annaga aan ma aragtay aan Facebook-ga aan ka diyaarin cashar oo ah sidee profile-kaaga log ugu xiranaysaa qaabkii ahaa hadda wuu ka duwan yahay oo profile-ka awal meesha laga raadinayay processka la marayay mid ka duwan waaye laakiinse sidii sahlan oo laakiinse profile-kaaga aad galaysa profile-ka log ugu xiranaysa wuu leeyahay laakiinse markii gudaha la galayo aanan la helaynin qaabkii uu ka duwanaan doonaa marka haddaa aad dirtaan aan guda galno sidee profile-kaaga log ugu xiranaysaa marka aan guda galno waxaa soo kicinaysaa Facebook-gaaga soo kicinaysaa Facebook-gaaga markuu saan kugu soo kacsan yahay dhowr qaabood ayaa ma aragtay loo sameeyaa oo ma aragtay dhowr qaab baa ma aragtay profile log loogu xirtaa qaabka koowaad wuxuu yahay ina aad soo kicisid meeshaas ma aragtay ay ku profile-kaaga gudihiisa aad gashid meesha sawirka ku saaran yahay oo aan tilmaamayo calaamadda aan saarayo koodana meeshaas ayaad ma aragtay soo furaysaa marka meeshaas aad soo furtid waa kana aniga profile-kayga waa kan log ayaa igu xiran you have locked your profile profile-kaaga log ayaa igu xiran marka aad soo furatid meeshani waxaa samaynaysaa hadduu adiga profile-kaaga log uusan kugu xirnayn waxaa taabanaysaa saddexdaas dhibcood ayaa taabanaysaa kadib waxaa kuusoo baxaya instruction oo badan ayaa kuusoo baxaya kadib intaa markay kuusoo baxaan waa kaasa meeshaas ay ku qoran tahay unlock profile wuxuu leeyahay aniga Facebook-gayga waxaa iigu xiran profile-kayga waxaa iigu xiran log baa iigu xiran saas darteed wuxuu ii leeyahay unlock profile haddaa aan ku dhufto oo aan sii wado wuxuu soo baxayaa in profile-ka aan ma aragtay logi aan ka qaaday marka haddii hadda aan ka qaado tusaale ahaan profile-ka logga aan ka saaro oo unlog aan iraahdo meeshii haddaan ku laabano wuxuuna leeyahay log profile ayuu noo soo qori doonaa fiiri markay aysaan tahay waa ka laabanaynaa kadib waa kusoo laabanaynaa okay kadib profile-ka ku laabo oo wax fiirisaa waa kaasaa kadib ku laabo muxuu leeyahay waa kaas fiiri soomahan awal muxuu ahaa unlog profile buu ahaa laakiinse hadda muxuu yahay waa log iyo profile balse wadooyin kaloo la maro way jirtaa process kaloo la maro way jirtaa systemkan ah
log profile sida automatically oo profilekaaga log kugu xiraayo oo waxyaabaha friendskaaga iyo waxyaabaha aan la arkaynin ma lahan Soomaaliya. dhulkan Asia-dan qaasatan India, Bangladesh iyo wadamadan Asia-dan qaar kamid ah waay ayagoo dhan xitaa maahan qaar kamid ah waaye ayaa ku xiran kartaa profilekaaga log. marka haddaad Soomaaliya joogtid waxaan kugula talinayaa oo aad u baahan tahay profile log muctada u tahay waxaa samayn kartaa qof jooga dalka dibadiisa qaasatan meesha hadda aan joogo Bangladesh, wadankan Bangladesh oo kale qof joogo baa leedahay Facebook iiso samee. hadduu inta Facebook uu qofka kugu sameeyo ama India hadduu joogo uu Facebook kuu sameeyo uu Facebooka yani Facebookaas uu kuu soo diro passwordkiis wixii kuu soo diro Soomaaliya ku isticmaashid markaas kadib waad heli doontaa profile log meesha ay ku qoran tahay waa heli doontaa. maasha Allah. marka intaas ayaan uga tegayaa dadka su'aalaha badan soo weydiiya oo ay dhaha anaga profile log ma aragno. nasiib daro Soomaaliya ma lahan profile log meel ay ku qoran tahay ma lahan. hadda Facebookkaaga lagu sameeyay Soomaaliya fadlan ha isku daalinin laakiinse waxaa samayn kartaa waxyaabihii uu asagu ku xiraayay adiga xirxiran kara oo yani gudahaad galaysaa settingkaaga meel waxaa jirta yani ka qarso friendskaaga qari oo yani friendskaaga public ha ka dhigin oo wada qari. yani waxyaabaha kale waxaa jira boostiga adiga aad soo dhigaysid dadkoo dhan yaysan wada arkin yani adigana gaar baa u xiraysaa. intaasoo dhan instructionka aan maraysay baa hal mar lasoo fududeeyey oo looga dhigay profile log. marka intaas ayaa uga tegaynaa profile log. dadka ma aragtay su-aalahana soo weydiiyeyna jawaabtooda kolley waa haystaan ayaa filayaa. markaana waxaan gudageli doonaa WhatsApp-kaaga siduu ugu jawaabi doonaa qof kuu soo diray message. haddaa maanta markaan aan sii ambaqaadno oo cashirkeena aan sii wadno sidee WhatsApp-ka ugu jawaabi karaa qof kuu soo diray message suu ugu jawaabi karaa. yacni processkaas ayaa hadda bilaabaynaa insha allahu tacaala nala soco si adigana uga faa'iidaystid oo qofka haddaad WhatsApp isticmaashid waaye si adigana uga faa'iidaystid. waana geeni doona waan yani cashiradan xiga iyo fiidiyoyada xigana waxaan ku qaadan doonaa sidee Facebookkaaga ama Messengerkaaga uu yani message hadii lagu soo diro uu ugu jawaabi karaa qof kale. waa geeni doonaa insha Allah tacaala laakiin maanta WhatsApp-ka ayaan ka hadlaynaa. marka koowaad waxaad samaynaysaa marka kugu horeyso waxaad soo degsanaysaa application magaciisu uu yahay autorespond application baa soo degsanaysaa. applicationkaas markaad soo degsatid uu ma aragtay haddaad rabtid inaad soo degsatid waxaad tegaysaa Play Store-kaaga hadduu kugu jiro waa dadka Android-ka isticmaala waxaad ku qoraysaa autorespond ayaa ku qoraysaa. waa kaasaa meeshaas ku qoran tahay autoresponder. waa kaasaa kaas ugu koreeya waaye oo aan taabanayo kaas waaye. marka kan aad soo degsatid oo marka aad bahalkan aad soo degsatid kadib aan hadda open aan leeyahay oo uu ii shaqeynaya. marka soo degsatid waxaad dul tagaysaa application-kii baa galaysaa. application-ka markaa gashid waxaad samaynaysaa waxaan dhan haddaan iska tirtiro hadeertaan oo aan soo bilaabo yani hadda waxaan waa cancel buu leeyahay. marka hore tusaan kuuma soo qoray waxaan aniga ku qortay oo ma aragtay WhatsApp qofka igala soo waco yani wax ii soo qoro yani si ugu jawaabo anaaba hore u sameeyay. marka koodor midka ugu horeeya soo furaysaa marka waxaanu kuu soo qabanaya meesha ugu horeyso hadda waxa iigu qoran aniga meesha ugu horeyso waxa iigu qoran assalaamu calaykum baa iigu qoran. yani meeshan waxa ku qoraysaa yani waxa aad rabtid in ma aragtay haddii la soo qoro qofka uu soo qoro oo yani baad meeshan qofku hadduu wixii aad rabtay qofkaas hadduu soo qoro in loo jawaabo aad rabtay baa meeshan ku qoraysaa kooda hore oo meeshaas koowaad baa ku qoraysaa. hadda ka soo qaad oo kaleeto waxaan ku qorayaa assalaamu calaykum oo kaleeto. Soomaalidu intaasay u badan yihiin assalaamu calaykum baa ku qoraysaa kadibna waxaad taabanaysaa meeshaas ay ku qoran tahay ilaa meeshan waxa waaye wixii haddii assalaamu calaykum lagu soo qoro yani waxa waaye ka jawaab assalaamu calaykum qof kasta oo soo qoro ka jawaab camal baa tiri hadeertaan. marka kadib kan ayaa taabanaysaa oo meeshan TikTok kuu saara waa ka bedelaysaa kan ka hooseysa ayaa geenaysaa kadib hoos baa u tegaysaa yani waa kana meeshan aad ku qoraysaa. hadda waxa igu qoran waxaasoo dhan baa ku qoray meeshana waxaa ku qoraysa oo send ay ku qoran tahay should be send meesha ay ku qoran tahay waxaa leedahay waxyaabaha ay waajib ka tahay inaad u dirtid oo aad rabtid in loo diro qofka assalaamu calaykum qofkii oo ku soo qoro waxaa leedahay wa calaykum wassalaam walaal
oo kaleeto waan mashquulsanahay fadlan yacni waa mashquulsanahay waxay wixii adiga markaas aa u baahan tahay baa ku qoraysaa walaal maa mashquulsanahay. marka intaas markaad tiraahdid kadib waxaad leedahay meeshan tigta ay ku qoran tahay, meeshan oo maaragtay saxda ah ku qoran tahay baa taabanaysaa. kadib waaway kii kumaana qorin, yacni wixii waan ka tiray, wa calaykum assalaam ayuu u qorayaa. kadib tigtaasaa taabanaysaa. waa kaasaa meesha hadda u korayso qofkii kuusoo qoro assalaamu calaykum kuusoo qoro, whatsappka wuxuu u diri doonaa qofkaasi wa calaykum assalaam. waana sii badsan kartaa wa calaykum assalaam walaal waa mashquulsanahay fadlan wax yar ka bacdi igu soo celi, asaa toos ugu diraayaba. insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa fideogeena maanta. aad baa ugu dheeraanay, marka waxaan ka codsanaynaa haddii channelka aad ku cusub tahay please subscribe saar, share, like. marka maanta wixii ka dambeeyo insha allahu tacaala aad baa u xiisayn doontaan. fadlan haddii aad channelka aad ku cusub tahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanaynaa inaad channelka subscribe saartaan saa annaga hadafkeena iyo hiigsigeena aan u gaarno. adinka la-aantiina waxba ma nihin annagu. thank you so much, daawashadaada aad ugu mahadsan tahay. wabilaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.